هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. daawadayaal soo dhawaada insha allahu muuqaalkan maanta waxaan ku sharxaynaa haddii la yidhaahdo extensionska ugu fiican maxay ahayd aan ku isticmaalo VS Code-ka markii la joogo howl maalmeedkayga. Marka waxaa jirto extensiono oo very useful ah maxay ahayd khaasatan coding-ka oo lagu isticmaalo VS Code-ka. Marka waxaan ka hadlaynaa insha allahu extensionska ugu fiican aan isticmaalo coding-ka marka la joogo VS Code-ka. Okay, halkaan waxaan ka furinaynaa dabcan folder aan ka furinaynaa waxaan new kadib waxaan leeyahay folder cusub aan leeyahay waxaan leeyahay best txt iska dheh marka daba kale aan siinaa folderka gudaha u galaa halkaan marka folder kale ka furanaa oo folderka waxaa dhahdaa control a dheh lacala hadduu /txt oo kusoo qaban waaye oo qaabkan kugu soo qaban waaye waxaad tegaysaa view aad furanaysaa kadib waxaa leedahay file name extension halkaan aad jeega saaraysaa macnaha soo kuu soo qabta extensionkan soo kuu soo qabta marka aad keligaa leeyahay kadib waxaa leeyahay show more options renamekaas aan leeyahay control a leeyahay kadib waxaan leeyahay index.html okay yes aan leeyahay kadib halkaan aad kala siinaa meeshaan kor waxaan ku qoraa cmd intaan leeyahay enter markaan kadib waxaan qoraa code.enter leeyahay code. sababta aan qoraa xitaa waxaan rabaa inuu VS Code ugu furo. Okay, trust all the authors halkaan aad jeega saar kadib yes I trust aan leeyahay kadib waan iska xiraa shaashada welcome ku iska xiraa halkaan ku dhufanaa hadda saa ujeedin VS Code inuu furan. Okay, VS Code marka waxyaabo ugu caan waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay extension marketplace oo runtii ku fududeynaya howlahaada iyo sidoo kale VS Code isticmaalkiisa kasii dhigaya mid oo maxay ahayd aad u sii fudud oo maxay ahayd aad u isticmaali karto qaabka aad rabto macnaha. Marka tagaynaa halka ay ku qoran tahay extensions markaa dhahno halkaan waxaa kuu soo galayo isla markiiba waxaa kuu soo galayo kuwooda oo kugu shuban macnaha aad maxay ahayd aad iminka isticmaaloosid halkan kuu soo galayo sidoo kale intaa hoos waxaa kugu soo galayo kuwa VS Code asiga recommended oo kula talinaya inaad ku shubtid macnaha. Okay, sida extension cusub oo shubid halkaan aad tagay kadib extension magaciisa qore halkaan extension magaciisa ku qore kadib markuu ku soo baxo install leh waaye extensionska aad isticmaalo waxa ugu horeeyo coding markii la joogo extensionkan loo yaqaano augment. Okay, dan ku qor meesha augment aan iraadin oo kana dooraadinooya aan click siiyo aniga waa kan hadda uu igu shuban yahay dabcan wili aadna popular ma u noqonin oo boqolaatiko wax saas camal installationkiisa laakiinse waa extension very useful macnaha marka coding la joogo. Okay, wuxuu leeyahay agent uu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay code completion uu leeyahay marka ku shubtid wuxuu sameeysanaa icon-kan uu sameeysanaa macnaha kana icon-kan hadda dan ku dhufto waxa iga codsanayaa waa kana code-keyga code base-keyga in uu soo aqriyo iga codsanayo marka index code base aan leeyahay. Extensionkaas aad ujeedid isticmaalkiisa aad u fududahay halkaan waxaad ku arkaysaa macnaha wuxuu leeyahay laba modelka hadda noo saaran jad waaye oo macnaha haddii aan maxay ahayd wax weydiiyo uu ka soo jawaabo macnaha waa jatting waaye. waxaan sameyn karaa marka anoon VS Code ka bixin anigoon VS Code ka bixin inaan maxay ahayd code taskiga iyo logic waxyaabaas inaan weydiiyo waa jatting ugu soo sameeyo ugu soo jawaabo macnaha. sidoo kale hadda meesha modelka aan furto aan u bedelo agent hadda u bedelo
modelka agenty waxyaabuhu sameynaa waxaa kamid ah code basekeyga ayuu maxay ahayd ayuu la falgalaa macnaha so marka hadda agent haddaad doorto oo inta aan wax ku qoro wixii oo ii abuuraa codeka waan ii save gareynaa tusaalahaan oo kale halkaan waxaa ku qoraa waxaa leeyahay create coming soon page using Tailwind CSS and HTML for the images use Unsplash API or Pixelis or pixelis.com or pixabay.com intaasa enter leh waxaa ii dooran agentiga ii dooran yihiin website ay leeyihiin dabcan hadda inta qaybta extensions ku laabto augmentiga aan dhaho website kooda waa kana augmenticode.com waaye hadda click aan siiyo open aan dhaho website kooda waa kana marka dhowr qabood ay leeyihiin hadda pricing kooda aan fiirino qaybahooda leeyihiin qayb waxa ku jirto community oo free ah macna waa kana hadda qaybtaan isticmaalaa community free laakiin se waxay leeyihiin unlimited completion horta leeyihiin oo codeka markaa bilowdid qaab unlimited ay kugu dhamaynayaan oo maxay ahayd limit wax ma ku saarna sidoo kale chat messageska qaybtaan inta ah oo chattingka internet kaga hadli kartaa oo maxay ahayd waxa kaga hadli kartaa andho ilaa 3,000 sida waxay leeyihiin marka limited to 50 agent request maadaama uu free yahay agentiga kan oo ku dooran ilaa iyo waxa dhiibi kartaa ilaa iyo 50 shaqooyin ku qaban karaa macnaha hadda waa kana wuxuu leeyahay start browse index.html xitaa terminalka xitaa uu ku ran gareynaa okay ale sameeyna marka asaa is ran gareynayo asaa is qaabeynayo macnaha okay waaya balankooda oo free ah waa kaas augmentic qabkaas midkan uu leeyahay $30 waa bishii developer $30 bishii so midkan maxaa waaye agentiga wuxuu ku yahay macnaha wax walba u baahatid waaya limit ma ku laha soo kale unlimited completion laakiin se $30 waa bishii marka kan iyo kii hore waxay ku kala duwan yihiin kii hore wuxuu ahaa AI training maadaama waxaan free lagu siiyay AI gooda ay ku training gareysanayaan macnaha training ka soo ogolaaw haddii aanan xogo badan oo sensitive ah aadan maxay ahayd ku sameeyeen sida waxyaabo oo credit card iyo kale iyo waxyaabo noocaas oo kale sensitive aad very sensitive ku sameeyeen oo kale projects AI training ka iska ogolaaw macnaha laakiin sida aad sensitive ugu sameeyeen plugin ka iska disable garay inta projects ka sameeyeen oo maxay waxaan ku tusi doonaa waxyaabo la mid oo la mid ka ah augmentiga qaybta enterprise kan oo jira hadda indexka uu imaado codeka indexka uu imaado waxa u jeedaa inuu ii sameeyay coming soon page-ki aan ka codsaday macnaha inta dadda website-ka daan tago video waa kana uu markuu baran gareeyay kanuu sameeyay inta xagelinaysa meeshan iyo brand loogada oo kala gelinay kana coming soon dabcan inta sawirka ma soo akhrinin waxaan samayn karnaa in aan sawirka bedelno macnaha salaano kala xad tagayna pixabay.com inta waxa ku qoraynaa macnaha coming soon coming soon oo kala iskaga qoraynaa okay haddii arbana kan oo kala soo qaadan karnaa waxaa la keli
kadib waxaa leeyahay right click anoon waxba soo dejin copy image link aa leeyahay halkan oo marka sawirka kusoo bandhigayo ayaa ku bedelaa image-ka kana cdn-kayga hadda u laabo marka page-ka refresh leh okay sawir kala sii jiro kan hadda wuxuu iga noqday background ahaan oo noqday okay sawir kale waa kana marka kan hadda background ahaan oo noqday marka sawir kala sii jiro sawirkan kala meel u sii yaala hadda dib u laabto كان كلا سوقاته right click copy image link ترتقى refresh كان معنا صور كلمة درسان كي كواد وحكي لي as background ahaan midkan wuxuu ka dhigay qaabkan oo kale marka u jeedin just coming soon page haduu ii sameeyay macna coming soon page oo ii sameeyay oo wuxuu dhahay la tisal bilgid kana automatic marka augmented code marka waxay kamid tahay extensionka AI extensions runtu waa AI oo aad useful ah macna haddii aan rabo inaan qayb kamid ah wax ka bedelo waxaan sameyn karaa inaan aan sii weydiiyo wax ka bedelano laakiin se tusaalihiisa intaanan ugu filan iyo qaabka uu shaqeeyo macnaha ujeedin kaas extensionka labaad oo codingka marka la joogo maxay ahayd isticmaalo asagana very useful ah waxa waaye waxaa loo yaqaanaa Gemini Code Assistant halkaan oo qoran extension inta ku qorno Gemini Code Assistant كنا معنا Gemini Code Assistant runtii extension-kan aad iyo aad u faa'iido u leeyahay waxyaabo badan oo ku fududeena runtii waxaaba dhihi karaaba number 1 AI code la dhihi kara Gemini Code Assistant number 1 AI code la dhihi kara marka arkay shaqooyinkiisa iyo complex taskiga iyo waxyaabaha ugu badan logic uu qabanayo marka arkay soo marka extension-kan Google iska leh كود هوري مركا وصو بحاي ومحي هذا بيدو هاي معناها العقو هاي او محي هذا في اس كود ماركت بليس كان ملاقيه لين اوكي قدالها دنب فري كدغين سو مركا اديغو waxay dhahan ilaa iyo 180 kun 180 kun messages per month wax noocaas oo kale marka 180 kun bish way ka badan tahay macnaha hada ka dhartaa waxa laga inaa ka isticmaashado soo marka extension kan waa free aadi aaduna faa'iido u leeyahay macna extensionka saddexaad aan maxay ahayd isticmaalo sometime marka qaarkood waa kan u badin waxa loo yaqaan client isagana maxay ahayd waa extension aadi very useful ah laakiin se ma gaaro macnaha augmented code iyo ma gaaro Gemini Code Assistant ma gaaro asiga wuxuu leeyahay saa u jeedid waxa waaye wuxuu ku shaqeeyaa horta API request ku shaqeeyaa marka waxaa sameeyay macnaha Gemini API ku xiran salaano kale halka extension ka data gano halka kaga shubna client waa kana marka ku shubta midkan wuxuu sameeysanaa kan uu sameeysanaa marka halkaana ku dhufanay kadib inta waxa gelinaysaa API request gaad haduu yahay Anthropic Claude haduu yahay Gemini hadii aan had Gemini API kii ay ugu jiro macnaha Gemini API keen waxaad ka helaysaa Google AI Studio halkaas ka helaysaa oo Google AI Studio kana hadda booqdo waa meesha ay Google ku soo bandhigto productyeeda codingka intaysan ay soo fasaxin meesha ku tijaabiso macna qaab API ahaan ay code u soo bandhigay markuu success noqdo developers badan ay fikradii ay wax ka dhigtaanna release version soo deynay macna ku sameeyay soo marka waxa jirta waxyaabo qaar ay awood badan oo halkaan laga helo ay Google wili soo deynaa jiro sida waxa kamid ah stream kan oo kala kamid ah
video generation kana kamid ah xitaa oo weli product aan usoo laakiinse qaab test ku jiro extensionka afraad aan kusoo gabagabaynayo oo runtii u isticmaalo codinka iyo waxyaabahan codinka waxaa loo yaqaanaa Kodi. Extensionkan sida augmented code iyo Kaline iyo wax ma lahan, agentic code ma lahan, laakiin isaga wuxuu leeyahay chat inuu leeyahay qayb chat, marka wuxuu ku siinaa modelo oo powerful ah sida Calo 3.7 iyo Calo 3.5 sanad oo qaab free oo ku siinaa macnaha bil walbo 200 oo message ayuu ku siinaa free. Hadda waxay ku soo dareen bas u jeedo aan hadda ma ogeyn marka ugu dambeysay kuwan bis ogaad waxay ku soo dareen Gemini 2.5 ay ku soo dareen macnaha